السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته ومركلية برنامجكني فلقينتا مانتا برنامجكeenan falaqaynta maanta ayaanu ku soo qaadanaa kulba dhacdooyinka ugu dambeeya dhinaca siyaasadda iyo arrimaha bulshada ee ka dhaca geyga Soomaaliyeed iyo sidoo kale caalamka guud ahaantiiba. Barnaamijkeenan maanta ayaa waxaanu ku soo qaadan doonaa dood lagu qabtay magaalada Hargeysa 24kii bishan aynu ku jirno ee February, doodaas oo ku saabsaneyd qofka reer Somaliland ahi muxuu noqonayaa jinsiyadiisa, wuxuu odhanayaa waa qof Somaliland ahay mise waxaan qof Soomaaliya. Doodaas oo dad badan ay ka qayb galeen ayaanu maanta falaqayn doonaa. Dadka doodaa ka qayb galay ayaa waxay isku jiraan xubno ka socday bulshada iyo sidoo kale xubno ka socday mataqaanaa qaybo kala duwan sida ururada mucaaradka iyo sidoo kale baarlamaanka. Dadkaas ayaa waxaa ka mid ah afhayeenka xisbiga wadani Badqa Jaamac Batuun, waxaa kaloo ka mid ah gudoomiyaha ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada Somaliland Axmed Yaasiin Sheekh Cali Ayaale, waxaa kaloo ka mid ah wasiirka hore ee caafimaadka dowladda Daahir Ayaale Axmed Xasan Cali iyo sidoo kale gabadh la yiraahdo Sucaad Carmi. Dadkaas ayaa ka qayb galay barnaamijkaas oo lagaga doodayay mataqaanaa qofka Somalilandarkii isirhaan ama wuxuu sheeganayo qof Somalilander ah mise waa qof Soomaaliya. taasoo ayaan falaqayn doonaa maanta, taasoo aanu aragti ahaan u arko inay tahay totally wax qaldanba in doodaas ay meesha timaado. Sababtoo aan u leehayna waan caddayn doonaa. Marka barnaamijka hanoo bilaabmo. Barnaamijkan ayaa waxaan ku bilowdi doonaa falaqaynta san horeba ugu soo sheegay. Doodaas ayaa waxay dhacday habeenkaas, waxaana ka soo qayb galay dad badan oo ka kala yimid magaalada mataqaanaa Hargeysa qaybaheeda kala duwan. waxaana soo qabanqaabiyey ururka la yidhaaho ururka adkeynta Somaliland. kaas ayaa barnaamijka qabanqaabiyey. doodaana saan sheegayna waa dood ku saabsan qofka Somalilandarka muxuu noqonayaa, ma qof ma Soomaaliya mise waa Somalilander, oo ayna wax macnaa sameyn aragti ahaanteeda marka loo eego. sababta qofka Somalilandarkii dhow maaha horta jinsiyad Somalilander ee waa dhulkii Soomaaliyeed, waana luqad, waana kelmad Ingiriisa oo af Soomaali ku noqonaysa dhulkii Soomaaliyeed. dhulka Soomaaliyeedna jinsiyad ma hada, waa dhul. waxaa jinsiyad noqonaysa Soomaali. Ethiopia markaa tiraaho ma aha jinsiyad, laakiin Ethiopian markaa tiraaho waa jinsiyad qofka sheegaysa. marka waxaad moodaa waqtigan waxaas weydiin leh maxaa ku soo hagaajiyey, iyadoo maalmihii ugu dambeysay hadalhayn badan ay ka taagneen Somaliland gaar ahaan magaalada Hargeysa, taasoo ku saabsaneyd inuu rabo inuu yimaado madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Maxamed Abdullaahi Farmaajo, kaasoo la sheegay inuu soo raaci doono ra'iisul wasaaraha mataqaanaa ee dalka Ethiopia. marka waxaa keenay waqtigan in dood sidaasa oo macno badan ku fadhiyin, oo aan u arko inay tahay dood caafimaad qabtay inay ahayn, oo iska tawn dood mataqaanaa caadifada oonan caqliyad ku salaysnayn. marka anu waxaan u arkaa inay tahay dood waqtigeyga aan taagnayn. waa ta koobaad aan waqtigeyga u taagnayn waxaa ka mid ah horta Somaliland weli si Soomaaliya si toos uguma gu'in. marka la eego nidaamkan weli inay sheegatay ama ay tahay maamul gooniya oo mataqaanaa nidaamkiisa leh oonan shaqo ku lahayn Jamhuuriyaddii Soomaaliya, laakiin ma helin ictiraaf caalamiya oo looma aqoonsan wadan madax bannaan sida wadamada kale ee Djibouti, Soomaaliya, Ethiopia iyo wadamada kale caalamkaba. marka doodani hadda maba aha waqti dooday taal, sababtaa weli lamaba helin ba ictiraaf, lama aqoonsan taana, markaa maba iman karto doodaasi. talabaad waxaad moodaa inay dad badan ka xantoonayaan istirnimada inay sheegtaan Soomaali, oo ay meel u raadinayaan meel ay mataqaanaa ay qabsadaan, oo ay kaba cararayaan Soomaalinimaduna wax laga carara ka weyn. markaa dadka ka hadlay dad badan baa aad ula yaabay hadaladooda. dadkaas waxaa ka mid ahayd gabadh la yidhaaho Sucaad Carmi, oo intaa muddadii dambe ka qayb galaysay doodo badan oo laga hadlay arrimaha Soomaaliya Somaliland iyo sidoo kale arrimaha gudaha ah, taasoo aad moodo hadaladeedu inay hadal xanafa ama hadalla iska ay yihiin caadifada oonan caqliyad badan ku salaysnayn. iyadoo mar ka hadlaysay qofka ajaanibka marka Somaliland gudaheega la eegayo muxuu noqonayaa, waxay ku sheegtay inuu qofka Puntland ka yimid ama qofka ka yimid kilka shanaad ama NFD ama Djibouti noqonayo qof ajaaniba, taasoo aanan caqliyadda
wanaagsan ayna sheegin in qof Soomaaliya lagu tilmaamo isagoo dhulkiisii Soomaaliyeed jooga in lagu tilmaamo waa ajaanib. balban markaa ayna hadaladii ay mataqaana halkaa laga jeediyey aan balan soo qaadano qaar ka mid ah. ku Israel lixdankii xuduudihii maxamiyadii Ingiriisku gumaysan jiray ee Somaliland protectorate dadkii ku Israel dadkii ku dhaqnaa waqtiga ku noolaa dadka ka Israel baa Somaliland horta wuxuu cadeeyay nationality-ga Somaliland dadku cid uu yahay halka muhiim kuma jiro dastuur jinsiyadeennuna waxaan hadda ka horna muran ku jirin kuna jiri doonin inaynu Somaliland dirsano reer Somaliland taasaan dhigo waxa weeye Soomaaliya dad baa ku nool Soomaali isku mid maaha Soomaali iyo markaas Soomaaliya Somaliland iyo Soomaalina isku mid maaha Soomaalidu way ka balaaran tahay Somaliland way ka balaaran tahay Soomaaliya waa isir balaaran oo dhul badan dega buu kulmiya ee wax ay Soomaaliya leedahayna maaha oo aan leeyahay iyaga laho wax ay Somaliland gaar u leedahayna maaha wax Djibouti gaar u leedahayna maaha markaan leeyahay Soomaali anigu markaan leeyahay uma jeedo Soomaaliya mana oranayo nationality ma oranayo anigu hadeer waa Soomaali laakiin isirkayga Soomaaliya muwaadinimadiisu waxay ku sugnaanaysaa Sucaad Carmiya bilowgii sheegtay markuu ilmuhu iskuulka tagayo waa in lagu canqariyaa sida hooyadu ilmaha ugu canqariso caanaha Somalilandnimada iyo muwaadinimada civic education baan jirin waxaan jirin doorkii wadaniyadeed baan jirin wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta ma micna wacyigelintu waa ummadda Somaliland oo lagu jiheeyo waxa ka dhaxeeya iyo ilaalinta qarannimadooda ma aha inay raadiyo Hargeysa iyo TV-ga qaranku ku saaraan agaasimo waxaad baa meel xari ka jarayo dhiig baa u daatay maxay baa u daatay waxaan u baahanahay markaa waxa weeyaan doorka fulineed ee dadkan dhuuxa muwaadinimada ka gelinaya waa buriska dawliga kuwaasaa kaalintoodii gabay maaha doodani dood ku tacalluqda dagaal baa dhacay maaha Soomaaliya iyo Somaliland waa dood bayskeedu yahay legal argument Somalilandna waxay xaqeeda ku helaysaa waxa weeyaan waa legal argument iyadoo oo samaysata sharci yaqaano waana la jebin karaya xornimadeedana waxay ku helaysaa iyaka cali jibr xornimadeedii ku luntay 60kiina kaliya tay Somaliland ku helaysaa maaha inagoo barta ka qalqaylinay waa inagoo legal perspective ku eegna taana garteedii iyo seen ku helayno annaga iyo dadka kale sharciga garanayaba way jebin karaya markuu uu leeyahay haday jinsiyadiisu qaadato waxay waayaysaa jinsiyadii Somaliland waraana sita jinsiyad kale oo British oo Somalilandera waxa jira boqolaal kun oo reer Somaliland oo jinsiyada kala qaatay miyay waayeen jinsiyadii Somaliland su'aashu taas maxaa marka ay guur qofku ku qaato ay qofku u luminaya ay wad aragtaa waxaan oo dhanban rag cadaysan ayaa qoray takalasa markuu ajnabiga uu ku tilmaamayo nin cad oo la guursado uu khaldan yahay ajnabiya ajnabi waxa reer Puntland baa ajnabi waxa muxuu ahaa qoladan kalka shanaad baa qolada NFD baa reer Djibouti baa ajnabiya dadkaasoo dhan haddaad isbaadhaan qof walba abti iyo inaabti iyo tolbu ku leeyahay meel ay ka jirtaa oo ay kala soocan yihiin qofka nolol maalmeedkiisa iyo qaranimadiisu ma jiro qofka Ethiopian ahaan buu u fikiraa qofka Yamaniga Yaman ahaan buu u fikiraa Carab ahaan uma fikiro nolol maalmeedkiisa ay ka mid tahay yamanimadiisu cuntadu sameeyo cunto Carbeed kuma tilmaamo cunto Yamani buu ku tilmaamaa marka propaganda war ka bayna biyo dhigay fanaankeenii iyo abwaankeenii iyo wadaadkeenii inta masaajidada badanka ka qudbaday soo dhan Soomaalilandnimaba ma aaminsana maxaa la yiraahday abwaanadeeni waxoo dhan waxay aaminsan yihiin oo kalsooni darro ayaa ku dhacday
inay Soomaalilaannimadii ka saaraan nolol maalmeedkooda taana roolkaana waxa gabay runtii oo yacni meesha ay ka baxsan tahay systemkii qarannimo